cabdiraxmaan bin cawf isagoo sooman baa cunto fiican loo keenay wallahi inuu cuno iska diido uu ooyey yaa cabdiraxmaan cun baa lagu yidhi cuntadan maxaa la cuni laadahay walaalkay muscab bin cumeer oo iga khayr badan baa dhintay buu yidhi maalintuu dhimanayayna muscab bin cumeer uu dhintayna mara kafan aan uga dhignaan weynay wuhi mara kafan aan uga dhigno mara keliya izaar baan u hellay izaar gunti xagga sare markaan ka saarnana lugaha mijaha ayaa noqonaya bannaan xagga mijaha markaan ka saarnana madaxa ayaa maaragtaane muuqanayay xaggii madaxa intoon marada ka saarnay ayaan mijihiisiina geed intoon soo qaadnaan ku dubnay waa muscab bin cumayr waman muscab waa ayo waa muqri weeyaan madiinata almunawara nebi maxamed oo aanan soo gaadhin waa yarkii sababta u noqday inay aqal walba ay dacwaddiiyo diinta islaamku ay biyo dhigto madiinata almunawara uu nebigu uunan soo gaadhin oo misiinna aanan lahayn oo markas dacwadada aan laga dhisin ayuu muscab binu cumayr intuu beer dhex fadhiistay kolba qof sidii loogu keenayey kolba qof siduu u siyaaranayey ayaa diintii islaamku aqalladii madiina o dhan wada gaadhay markaasaa qoys kastoo reer madiinaa ayay bilaabeen qur-aanka in lagu akhriyo lagu dhex barto nebi maxamed oo madiine soo gaadhin aqal kastoo reer madiina ku yaalla qur-aanka lagu dhex akhrisanaya muqri fatan quraysh intuusan islaamin ka horna waxaa la odhan jiray wiilka quraysheed wiilka quraysheed yacni waxaa laga soo qaaday quraysh nin kale oo dhallinyaraha inaysan lahayn muscab mooyaane yacni quruxdiisa iyo xaragad badnidiisa markaasay gabdhaha quraysheed odhan jireen muscab baan la soo xaasaabo oo la sheekaystay waa ayaam aljaahiligi zaman jaahiligi weeyaan dharka uu gashado shaam baa looga keenayey kabaha uu xidhana shaam baa hooyadii uga keeni jirtay uu islaamay raaxadii buu ka tegey dharkii iyo nolosha caynkaayo tarafkii iyo tanacumkii uu ku jiray ilaahay rasuulkiisuu ka doortay markaase hooyadii ka daba timiday tidhi muscabow baadna cuni maayo biyana cabbi maayo hadhna istaagi maayo diinta muxammadood ka soo noqotid mooyaane cadaaadda ha ku dhinta bay tidhi hooyo macaanay buu ku yidhi baadkaagana iska cun biyahaagana iska cab hadhkaagana ku noqo oo hadhkaaga iskaga noqo 100 nafood haddaad yeelato oo midba mar halkaa ay kaaga baxdo diintan islaamku tuwaa ka soo noqonaya maahina hooyo ma soo noqonaya khalaas madiinata almunawwaru nebigu markaa u diray madiinata almunawwaru nebigu u diray dharkaa ku dul googo'ay maalin maalmaha ka mid a markiu nebigu madiine soo gaadhay ee magaalada madiina muhaajiriintii ansaartii ay wada yimaadeen ayaa muscab binu cumayr oo cabaa'ad maaragtaana googo'da mara googo'an oo karkarma leh xidhan oo weliba intuu maxaa tidhahdaa baalka suraarkan maxaa tidhahdaa lagu badhankiina uu ka go'ay qodaxna uga dhigay maaragtaana iyo qori uga dhigay badhan ayuu soo agmaray baa la yidhi markaa nebiga markaa buu nebigu lilma sii daayey sal allau alay wasalam cali binu abi aalib baa ku yidhi yaa rasuulallah maxaa ku helood la ooyeysaa ii sheeg wuxuu yidhi alaa taraa buu yidhi cali muscab miyaanad arkayn buu ka yidhi nolosha uu ku nool yahay yacni tacabka ka muuqda maad arkayn faaqada baahida dharla'aanta nafaqa darrada ka muuqata waxaan xasuustay buu nebigu yidhi intuunan islaamin ka hor nicmaddii uu ku noolaa baan xasuustay iyo nolosha hadda uu ku nool yahay nolosha hadda muscab binu cumar uu ku nool yahayna ilaahay rasuulkiisaa kaga raaliya buu rasuulku yaa macshar ashabaab dhallinyaro ayaad ku dayanaysaa maanta adigu muscab binu cumayr raaxadiisii tanacumkii uu ku jiray xaragadii uu ku noolaa hooyo barwaaqaysan oo hanti oo xoolo oo ilaahay hanti uu siiyey ayaa haysatoo dhashay bay ahayd noloshii caynkaaya intuu ka yimiday ayuu wuxuu doortay nolosha inuu ku noolaado dhar la'aan hoy la'aan cunto la'aan markaase waxaa ka muuqata jirhkiisa mujaahadaa ka muuqata mujaahado ayaa ka muuqata iyo cadamu tacayush markaa buu nebigu leeyahay noloshaa uu ku jira hadda ma u jeedaan haa ilaahay rasuulkiisaa kaga raalliya buu ka yidhi inagana maanta dhallinyaradayna ayaa ku dayanaya